kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaartayna daawanaysay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamij gaar ah oo aynu ku wareysan doono wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar oo iminka safar ku jooga gudaha wadanka Kenya waxaanu ka wareysan doonaa arrimaha la xiriira hawada dalka Soomaaliya oo in muddo laga maamulayo gudaha wadanka Kenya dawladda Soomaaliya oo qalab ay lahayd hay'adda maamulaysa hawada Soomaaliya wadanka Soomaaliya ku haysa isla markaana si kama la sheegay halkaasi inuu ku gaaray iyo waliba qodobo kale oo arintaasi la xiriira oo safarkiisa kamid yahay iyo himiladiisa dhanka shaqada hasa ahaatee marka hore waxaan jecelahay in aan telefishinka STN aan ku soo dhaweeyo wasiir Maxamed Cabdullaahi wasiir ku soo dhawo TV-ga STN ee magaalada Nairobi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waan dhawahay marka Nairobi maanta kulli waa isla soconay wixii su'aalaha kullina ay weydiin doonaan insha Allah taala aad baa u mahadsan tahay kulli waa markii kuugu horeysay oo tan iyo markii lagu magacaabay aad timi magaalada Nairobi isla markaana arrimihii ugu horeeyay aad sameysay ay ahayd inaad tagto meeshii laga maamulayay 25 sano in ka badan hawada Soomaaliya qorshahaadan ku aadan safarkan si guud muxuu daaran yahay Rahmaan Rahiim sidii ay dawladda Soomaaliya u burburtay hawada Soomaaliya waxa laga maamulaa wadanka dibadiisa magacyo badan ayaa u soo baxay oo projectiyo kala duwan ayay noqdeen dad badan hay'ado kala duwan ayaa soo maamulay ilaa iyo 95kii waxa laga maamulaya xafiiska maanta aan tagnay ayaa laga maamulayay marka shaqaalihii meeshii joogay ayaan rabay inaan u tago oo aan isbarano kadibna aan u sheegno istaraatiijiga dawladda cusub ayagana aan dhageysto dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay sheeganayaan waa shaqaaluhu inkastoo ay hay'ad kale u shaqeeyaan sida la socotaba waa shaqaale maamula hawada Soomaaliya lacagta waxa siisa dawladda Soomaaliya benefitskooda waa hawadeena lacagtii laga qaaday Soomaaliya ayaa ku shaqeeyaan Soomaalina way u badan yihiin dad Soomaali oo tiro badan ayaa ka shaqeeya marka waxaan u imid halkan inaan isbarano oo aan dhageysto ayagana aragtidooda iyo ujeedooyinkooda waxa tahay wasiirkii saddexaad ee duulista hawada ku magacaaban ee Soomaaliya ee soo booqda xaruntan tan iyo markii dawladda Soomaaliya ay dhacday kadib qorsheel baa ka horeeyay wasiir Cabdi Guuleed oo duuliye Soomaaliyeed baa jiray adiga waxa tahay wasiirkii saddexaad markii halkaasi tagatay dadkii Soomaaliyeed Allah hada halkaasi ka shaqeynayay waxa ku soo baxay wallahi isbeddelku dadku ma jecla waana arrin iska caadi ah waa adduunka oo dhan laakiin sida aan arkay maanta dadku shaqaalaha Soomaalida iyo ajnabigaba si wanaagsan ayay noo dhageysteen sida aan filayana ama aad adigaba goobjoog u ahayd maanta marka aad dhageysanaysay sidii ay filayeen iyo ay naga filayeen ma noqonin arrinta waxay noqotay wada hadal wada tashi soo dhaweyn isfahmid sidaad maanta ku aragtayba waan aad baan isu fahamsanahay dhibaatooyinka ayaga haysto shaqaale ahaan hay'ad ahaan intaba waan dhageysanay wixii aan si degdeg ah wax uga qaban karnana waxaan doonaynaa inaan si degdeg ah wax uga qabano waxyaabaha kale ee awoodeena ka weyn ee aan hadda si degdeg ah wax uga qaban karin long term plan ayaan rabnaa inaan u sameeyno sidii aan arrintaas wax uga qadan lahayn dawladda Soomaaliya waxa ay dhowr jeer sheegtay in xafiisyadan loo wareejinayo magaalada Muqdisho haddana shacabku way ka daaleen waa la wareejinayaa sida aad la socoto hawadii oo maqana waa qayb kamid ah xorriyadda dalka Soomaaliya oo maqan maxay idin qorshaysan in maalinta kaliya ee Soomaaliya aan laga shaqeeyno maalinta Jumcaha ah aan u soo safro si aan ula kulmo shaqaalaha halkan joogo oo aan u ogaado fikradooda iyo waxyaabaha ay qabaan iyo aan la tashado waxa keenay ahmiyadda ay noo leedahay soo wareejinta hawada waan maqlay waana la ii sheegay in dhowr jeer oo hore la yiri hawada waa la soo wareejinayaa aniga midaydaan ka hadli karaa midda waxaan ku sheegayaa aniga in aan gelin doono juhdi aan caadi ahayn inaan gelin doono priority ayayna ii tahay arrintan soo wareejinta hawada Soomaaliyeed
annaga oo fiirinayna waxyaabaha nalooga baahan yahay oo idil iyo inaan samayn karno iyo inaanan samayn karin waxaan ku dadaalaynaa hawadaasi markii ugu dambeeyey waa la soo wareejinayaa laga wada hadlo inay noqoto aan riyadaa soomaalida ay qabtay aan reality ka dhigna ayaan rajaynaynaa insha allah tacaala waxay sheegayeen shacabka meeshan ka shaqaynayay inay u muuqanayaan dad agoon ah isla markaana dhibaatooyin fara badan ay tirsanayeen sida ay ka hadleen aanay jirin tababaro ay helaan mar haddii dalka Soomaaliya lagu wareeganayna iyaga ay waajibaadka qaadayaan sidoo kale waxa ay sheegeen in lacagihii lagu tababari lahaa hawada Soomaaliya laga shaqeeyay oo ay account ku jiraan ay ku yiraahdeen waayo cidda loo aruurinayo lacagtan maxaa ku qorshaysan xagga tababarada dadkan meesha ka shaqeynayaan maxaad u diyaarisay intii xilkii aan la wareegnay already waxaan la xiriirnay dawlado kala duwan hay'ado kala duwan oo tababarta shaqaalaha ayagoo kala sababtoo waxa lagu shaqeynaa waa technology markastana uu isbedelaa marka hadda sida aad la socoto oo maanta baa meesha ka ballan qaaday waxay ahayd inaan sameeyno baahida trainingka loo qabo horta inaan analysis ku sameeyno training need assessment inaan sameeyno sida ayaga noo sheegeen hay'adana qof baaba already joogay oo arrintaas sameeynaya dawladana commitments badan way haysataa dawlado kala duwan hay'ado kala duwan oo diyaar u ah inay tababarkaasi nala sameeyaan ayaan wax ka haysanaa midda kale annaga nafteena iskuul baan dhisannay waxaan rajaynaynaa insha allah tacaala sida ugu degdegsiin badan inaan iskuulka qalabayno trainingka loo baahnaayo dibadaha lagu qabanayo inaan wadanka dhexdiisa ku qabana ayaan rajaynaynaa dawladda aad iyo aad waxa jiray qalab aad ku qabateen magaalada Muqdisho ama dawladda idiga horeeyaba ay qabatay kaasi oo ujeedkiisu ah inuu soo gaaro magaalada Nairobi hase yeeshee si kama halka ku gaaray waxa jira warqad ay soo qoreen hay'adan fees ee meesha maashmusho isla markaana codsatay in qalabkaasi loo soo celiyo Nairobi isla markaana Nairobi la dhigo bal marka hore waxa aan jeclaa lahayn qalabkaasi sida uu magaalada Muqdisho ku soo gaaray in dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya aad u sharaxdo waa sax qalabka looguma talagelin Muqdisho laakiin haddana qalabkii iska socdo Muqdisho ma imaan maamulkii naga horeeyay iyo safaaradda Kenya safiirka hore noo joogay ayaa iska kaashaday in qalabkaasi laga soo dejiyo Soomaaliya marka sidaas ayuu ku yimid si oo iskama imaan marka waa la keenay dad baa ka soo shaqeeyay qalabkii wuu yaalaa waa run hay'adda inay weydiisatay waraaqo noo soo qortay dhowr jeer inaan qalabkaasi aan soo celino oo keeno Nairobi waa sax innagana waan ka diidnay inaan soo celino arrintaasna afgaran waa runtii ma aha waxa weeyaan annaga oo isku objective ah ayaa haddana waxaan ku kala duwannahay sidii hawada Soomaaliya tayadeeda lagu improve gareyn lahaa ayaan ku kala duwannahay iyagu waxay rabaan in qalabkaasi Nairobi aan keeno Nairobi in la dhiso marka ugu horeysa oo la keeno level ay ku sii yar shaqeyn karto dawladdii hore wasiirkii iga horeeyay iyo qalabkii way keeneen qalabkii meeshuu yaalay aniga strategy-gayga waxoogaa uu ka yara duwan yahay inkastoo the same objectives aan haysan haddana waxaan rabnaa qalabkii Nairobi noo yaalo qalabkii Muqdisho yaala ee yimid waxaan rabnaa in sida ugu degdegsiin badan aan qalabkaasi u rakibno oo uga shaqaysiino Muqdisho isaga oo yaala ujeedadeena ugu dambeys waxay tahay in xafiiska Nairobi aan xamar u rarno Soomaaliya u rarno oo Soomaaliya uu ka shaqeeyo sabab ma jirto marka meel aan ka guureyno oo ku talagalkeena uu yahay in aan ka guurno inaan qalab cusub u galino inaan effort badan u galino waa sax aad bay tayada qalabka yaala meesha u yar yahay laakiin dad micnaheeda ma aha tayadii baa xuna qalab cusub aan u soo iibino taladii baa aniga waxay la tahay tayada haday meesha Nairobi qalabka tayadiisa yar yahay in si degdeg ah Soomaaliya loo rakibo oo Soomaaliya loo dhiso ayadana waxaan nooga socdo waxoogaa discussion ayaa nooga socda waxaan filaynaa insha Allah tacaala mar dhow inaan arrinta ayadana inaan guul ka soo gaari doonaan filaynaa aad iyo aad waxa jira sheekooyin bulshada Soomaaliyeed u baahan tahay in si fiican daah looga qaado waxaad la socotay hay'adan 25 sano ay maamulayeen meeshan hawada Soomaaliya waxaad la socotaa
xogna aan ku haynaa in diyaarad kasta ee hawada Soomaaliya ku duulaysa adeega loo sameeyo laga qaado $275. haddii aad dib u guurinaysaan xafiiskan oo Muqdisho ay geynaysaan inta badan dhalintii meesha aan kula kulannay waxay muujinayeen rajo xumo qaar baa waxay lahaayeen waxaan u baahannahay qalab iyo dad in lagu wareejiyo dawladda Soomaaliya haddii qalab iyo dad kaliya aad la wareegaysaan meeyay dhaqaalihii 25 sano la aruurinayay oo ay hay'adan gacanta ku haysaa ma jiraan wax la xisaabtana oo idin yaal maxaa idiga qorshaysan lacagta hawada Soomaaliya laga aruurinayo waxay ku dhacdaa trust fundigaasi dad ayaa inoo hayo lacagta Soomaaliya ayaa iska leh sidaad ogtahayba dawladaha Soomaaliya si fudud ay isu bedeli jireen marka shaqada ayadoo markasta dhexda joogta la bedeli jiray dawladda iyo marka arrintaas caqabad bay runtii ku ahayd wada xisaabtan tiro badan ma jirin marka qof lacag ku hayo markaad adiga markasta isbedelayso intuu ku soo raadsado kuma dhahay war lacagtaada waa tan ila xisaabtan kaale wixii iga qaado kuma dhahay marka insha Allah taala hadda waxaan rajaynaynaa in wada xisaabtankii aan bilowno bishan aan ku jirna hadda bisha berri insha Allah taala bilaamaysa ee Ramadaan ayaan rabnaa gudaheeda bilowgeeda inaan wada xisaabtankaas furno inaga oo team ah la xisaabtankaas marka waxaad ka bilaabaysaan laga soo bilaabo 93 markii dib loo unkay hay'adan oo ay Nairobi ku shaqo bilowday qarashkii ay shaqaysay marka hore waxaan fiirinaynaa in horta wada xisaabtan hore uu dhacay iyo in kale sida aan ka warhayno la wada xisaabtan cad oo ama audit ah ma uusan dhicin haddii uu dhacay meeshii midka uu ku joogsaday ayaan ka bilaabayna inta ka dambeysay haddii uusan dhicin xilliga xirka ay la wareegeen hay'adan FIS la yiraahdo ee hadda xilka hayso 95 ayaan ka bilaabayna haddii Ilaahay ka raali maayo sida aad la socota dhawaan waxaa jiray shir la qaban qaabinay in lagu qabto waddanka India shirkaas ujeedkiisa waxa uu ahaa in maadaama Soomaaliya aanay awood u lahayn in adeegyo u samayso diyaaradaha hawadeeda ku duulay gaar ahaan soohdinta hawada ay ka wadaagaan dalka India oo dadkii meesha joogaba ay noo sheegeen in isgaarsiintooda aanay gaarin oo diyaaradahaas adeeg u samayn karin loo baahan yahay in hawada la kala qaybiyo wadamada Seychelles Ethiopia Djibouti iyo India lagu kala wareejiyay Kenya arrimahaasi oo ay Soomaali badan walaac ka muujiyaan waliba la sheegay inay u ekaanayso gumeysi dib loo gelinayo Soomaaliya arrintaas xaggee ku dambeysay shirkaasi uu dhacay sano hore ayuu dhacay sanadka dhaha waa sax wax badan baa ka jira arrintaas iyo walaacaas ay Soomaalida muujisay arrintaasna waxaa keenaysa waxyaabo yar yar oo hawada markasta ka dhaco ay ka mid yihiin diyaaradaha in ay maqli waayaan oo kale sababtoo ah qalabka aan haysano tayadiisu ma wanaagsana taas micnaheeda ma aha in dawladda Soomaaliya ay ogoshay in hawadii la kala qaybiyo oo meelo kale laga xukumo hawada kala qaybinteeda in meelo kale laga xukumo go'aan ay dad kale iska gaari karaan ma aha waa in dawladda Soomaaliya ay saxiixdo oo ay ogolaato aniguna ma saxiixin wasiirka igu horeeyayna ma saxiixin dawladdana ma saxiixi doonto arrintaasi micnaheedu waxa weeyaan hawadu lama kala qaybin doono oo ma dhici doonto arrintaa annaga nafteena waxaana saaran markaas mas'uuliyad ah ciladaha ay sheeganayaan diyaaradaha iyo dhibaatooyinka inaan xalino marka waxaana lagu xallin karaa qalab cusub tayo wanaagsan in la soo iibiyo qalabkaasna hadda qaarna wuu yaalaa Soomaaliya qaarka kalena waa la soo iibinaya haddii Ilaahay ka raali saacadda wasiir sida aad la socoto dawladda Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto oo dalka maamulaysa ayaa ama soohdin Soomaaliya hawada ku lahayd oo iyadu ay xaq u lahayd waxa lagu wareejiyay Seychelles iyadoo lagu sheegay dawladda Soomaaliya in ay awood u lahayn inay hawadaasi maarayso hadda oo la ogyahay oo Soomaaliya ay soo kabanayso colaado fara badan iyo dhibaatooyin fara badan ay soo mareen awood intee leeg ayaad u leedihiin in qorshahaasi la damacsan yahay in hawada lagu kala qaybiyo aad maaraysaan maxaa dadka Soomaalida ku qancin lahayd haddii tala ay fariina ka baxdaad u sheegi lahayd dawladda Soomaaliya xilligaas dawladda jirtay waa run waa dawlad xilligaas xoog badan bay ahayd shacabka Soomaaliyeed inkastoo waddanku uu burburay
haddana burburka waxyaabaha badan ee uu sahlay waxaa ka mid ah dadkii waxbarashadii soomaalidii hore maaha waxaa weeyaan dad badan oo waxbartay ayaa ku jiraan marka waxa soomaalida ay leedahay si sahal ah isagama qaadan karo arrintii badda waad xasuusataa iyo buuqa ka jira iyo waxyaabaha ka dhacay ma filayo hawada Soomaaliya in lagu soo degdegayo in haddii arrintaasi la isku dayana dawladda waxa weeyaan wax alla oo kaga aadan ayay arrintaasi sameynaysaa laakiin aan rabaa inaan ku xaqiijiyo inta arrintaasi aynan meesha ugu dambeysay gaarin waxaan rabnaa in qalabkaasi meesha yaalay iyo dhibaatada ay sheeganayaan diyaaradaha inaan xalin kulley arrintii badda ayaad soo hadal qaatay ee Soomaaliya ee Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxaysa waliba muranka badan dhalisay maxkamadda dambiyada maxkamadda cadaaladda dunida la aaday dadka qaar ee arrimahan saadaaliya ama ka hadlay cilmiga wala waxa ay leeyihiin haddii Kenya ay ku guuleysato in baddaasi ay qaadato hawo istiraatiiji ah oo Soomaaliya ay leedahay oo marinkaas diyaaradaha ay marayeen haydna way qaadanaysaa dawladda Soomaaliya Soomaaliya ka in dhinac kasta laga soo hajoomaya dadkii aqoon-yahanka ee Soomaaliyeed oo adiga aad ka mid tahay wasiirane inta badan arrimahaas ay ka gaabsanayeen maanta maxaa idin muuqanaya Soomaaliya majid wanaagsan bay ku socotaa masjid oo eg in la boobaya ayaa iminka ku soconaya Soomaaliya lama boobi karo annaga dhaxdeena runtii uu dhici karaa iska qabsasho iyo laakiin Soomaalida waxay ku fiican yihiin waxyaabaha national interest waxyaabaha dawladda leedahay waxyaabaha sumcadda Soomaalida markasta way isgarab istaagaan dawladdan runtii inkastoo aniga dawladda aan ku jiro ay noqonayso qof dawladda difaacay way ka duwan tahay dawladihii hore waxa weeyaan hawo Soomaaliya ay leedahay inta dawladdan dhisan tahay faraha kama bixi doonto annagana waxaan isticmaalaynaa all the legal means necessary baan isticmaalaynaa haddii ay heerkaa gaarto inta aynan gaarinna si saaxiibtinimo si wada shaqayna iyo waxyaabaha ay nooga baahan yihiin hay'adaha ku shaqale ee hawada waxyaabaha ay nooga baahan yihiin oo dhan waan sameyn doonaa insha Allah aad iyo aad waddanka Yemen oo Soomaaliya sohdin la leh waxaa ka dhacaya dagaallo waxa la ii sheegay Soomaaliya in hawadeeda intii Yemen aanay colaadaha ka dhicin maalin kasta ay mari jireen ilaa 80 diyaaradood iminkana in ku dhow 300 ilaa 400 baa maalin kasta mara dhaqaalaha ka soo xarooda marka laga reebay inay meeshaas ay ku dhacaan dawladda si gooniye ula socota iyo xisaabaad gacanteeda ku soo dhacay ay ka warhayso miyaa jira maadaama wax wada xisaabtan ah aanan ilaa ay hadda ku sameeyeen hay'adda lacagta inoo qaado runtii ma garan karno laakiin waxaan haynaa diyaarad kasta oo soo martay hawada Soomaaliya iyo xilliga ay soo martay inta saacadood ay ku dhex jirtay inta space-ka inta ay ku jirtay space-ka Soomaaliya oo idilwaan hayna waxaasoo dhan way record gareysan yihiin waxyaabo been laga sheegi kara ma aha wax la khayaameyn kara ma aha hal meel iyo laba meel kuma jirto deetadaas meelo badan oo kala duwan ay ku jirtaa soo marka wada xisaabtanka yimaada lacagtaasi lacag dhumi karta ma aha in la dhunsado waa wax kale laakiin lama dhunsan waxaad sheegtay diyaarad kasta oo hawada Soomaaliya maraysa in lala socda la record gareeyay ama la qoray la og yahay inta saacadeed Soomaaliya ku jirtay marka laga reebo xogtan hay'adan ay idisiisa mooyaane ma xog kale oo aad haysaan oo hadhow aad miiska la fariisanaysaan oo ku xisaabtami karaan ayaa jirta hay'adda xogta ay hayso meelo badan oo kala duwan ayaa xogtaasi laga hayaa marka ma aha hay'adda xog ee ayada kaliya hayso computer ayada ay leedahay ku jiro oo qofka ka dansan karto oo ka xiran karto oo dadka kale aynan arkeenin ma aha waa hay'ad international ah oo UN ka tirsan innaga nafteena as dawlad aan access u leenahay deetadaas xafiiska halkan ku yaala inkastoo ay hay'adaasi u hoos tago haddana innaga ayay noo shaqeeyaan soo deetadaas access ayaan u leenahay innaga nafteena meelo kale oo kala duwanna deetadaas waa laga helayaa waa tahay waxaad sheegtay Soomaaliya inaad guureysaan shaqaalahana waxaad ka ballan qaaday doortooda inay helayaan gunooyinkii iyo dhaqaalihii ay lahaayeen caafimaadka halkan ay ku helaan sidoo kale xagga ay ku heli karaan guryo aad u sameyseen ximiladaasi maadaama la og yahay dawladihii Soomaaliya soo maray oo in ka yar 6 bilood qaarkood isku bedelay wasiiradii imaanayeen ay tagayeen awood intee leeg iyo kalsooni intee leeg ayaad u leedihiin ballan qaadkii aad maantay shaqaalaha ka ballan qaaday inaad rabayso ataan maanta dawladda Soomaaliya ayaa bixiso
again wuxuu ka yimaadaa hawada Soomaaliya marka shaqaalahaasi ay u wareegaan Soomaaliya hawada Soomaaliya diyaaradihii marayay lacagtii laga qaaday ayuu haddana mishaarkooda ku baxaya oo mishaar meel kale laga raadinayo ma aha marka mishaarkii hore ay u qaadanayeen ba sii qaadan doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo kuwa ayaa inagu doodaya xuquuq ayaa inaga maqan waxa ay tilmaameen in xuquuqda ay leeyihiin haddii meesha adinka aad timaadaan qaabkay u heli karaan ayay shaki gelinayeen inkastoo qaarkoodna ay u riyaaqsanaayeen in Soomaaliya lagu noqdo haddii dawladda Soomaaliya ay mushaaraadkaasi bixiso wasiir waxa la isweydiin karaa dadkaasi maxaa sababay mushaarkii ay lahaayeen inay waayaan iyo xuquuqiyaadka qaar ay sheeganayeen intaba xuquuqiyada dadkaasi ay sheeganayeen waxay ahayd contractiga ay saxiixeen ayaa wuxuu ahaa 5 sano ee ugu horeeyay haddii aad shaqada ka tagto waxaad luminaysaa xaq aad lahayd marka kaasi wuxuu ahaa contract ay ku saabsaneed shaqaalanimadooda oo hay'adda ay la galeen marka waxaan leenahay inkasta oo 5 sano gudaheed qofkii ka tago uu luminaya xuquuq haddana 5 sano gudaheed qofkii ka tago xuquuq kale ayuu weli leeyahay oo contract ku jirta naftooda marka waxa aan leenahay waad helaysiin waa xuquuqdaas marka ay Soomaaliya u soo wareegaan contractiga ay la soo wareegayaan contractigoodana inaan improve gareyno oo wax ku dadarnamo iyo waxba ma doonayno inaan ka dhino soo xuquuqdii ay halka ka helayeen mid la mid ah ay ka helayaan ayaga oo wadankooda jooga waa run guryo waan dhisnay mar dhowna waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda inaan furo haddii Ilaahay ka raali noqdo deegaan aad u wanaagsan oo casri ah oo meel nabad ah ku yaalan oo loo sameeyo oo shaqaalaha aysan aad iyo aad waxa jiray arrin Soomaalida ragaadisay oo shaqo kasta oo ay dawladda qabanaysana la sheegay caqabado inay ka imaan karaan ama ay kama imaanayeen waxa ka mid ahaa maamulo la sheegay in loo dhisay hab federaal ah balse dhinaca kale marka loo eego ay ka dhex muuqanayaan habbeeleedyo shaqaalaha iminka inta ka shaqeeya qaarkood hadda ayaa la tababarayaa maamulada ayaa laga keenay qaarkoodna waa dadkii hore u shaqeynayay ilaa 30 sano hay'adan ka shaqeynayay adiga ka wasaarad ahaan wasaaradda aad maamusho ka wasiir ahaan ma waxa ku qorshaysan shaqaalahaasi in sida gobolada looga soo arooriyay ay u shaqeeyaan mise waxa jira waxyaabo kale oo aad shaqaalahaasi ku xulaysan haddii aad kuwa kale keenaysan runtii aniga shaqaalaha wasaaradda ka shaqeeya ama dhalinyarada cusub ee la keenayo aan ugu talagalnay traininada cusub inay qaataan intaba ma noqon doonaan dad ama qabiil lagu soo xulo ama maamul goboleedyada ay soo appoint gareeyaan wuxuu noqon doonaa dad Soomaaliyeed oo degan Soomaaliya meel kasta oo ay ahaato oo ku yimid competency ku yimid ayay noqon doonaan marka qofku hadduu rabo gobol alla gobolku rabo oo Soomaaliya ama maamul goboleedku rabo ha ka soo dalbada shaqada waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaan ku kala saari doono si competency-gooda awoodooda kartidooda ayaan ku kala saari doonaa kuba hadda jooga aad sheegtay maamul goboleedyada iyo meelahaas kala duwan ka yimid qofkii Soomaali ah ee doonaya inuu meel Soomaali degan tahay uu ka shaqeeyo oo rabo inuu ka shaqeeyo magaalo hebel iyo gobol hebel haddii uu serve gareynayo wadankii arrintaasi waxba kama qabno aad iyo aad shaqaalaha inta jooga madaxda hay'adda fees waxa ay sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay la kulmayaan ka hay'ad ahaan tusaale sharciyada ay ku shaqeynayaan in aan lahayn deganaansho rasmi ah oo dhanka shaqada ah oo qaarkood ay ku shaqeeyaan fiisooyin dhanka waxbarashada halkan ay uga shaqeeyaan sida ay noo sheegeen maxaa idiga qorshaysan kuwan inta sii joogaya iminka ee shaqeynaya ee waliba dan qaranka Soomaaliyeed leeyahay maanta qabanaya ee haddana ka cabanaya dhibaatooyinkii dalku joogay ay ku shaqeyn lahaayeen wasaaradda maxaa ugu qorshaysan in iminka ay ka qabato shaqaalaha Kenya hadda joogo inkastoo aan ka shaqeynayna wadankan 25 sano in ka badan wali waxay ku shaqeeyaan sida ay iyagaba si cad u sheegeen oo meel kasta laga og yahay ardaynimo qaar baa qaxooti ah waa laga yaabaa marka maadaama aan rabno in xafiiskani uu Soomaaliya u guuro runtii aniga personally ma doonayo inaan energy badan geliyo iyo
sidii sharcigaasi loo bedeli lahaa oo loogu sameyn lahaa deganaansho deganaanshaha qofka aan Soomaaliga ahayn Soomaaliyan ooga sameynayaan si uu Soomaaliya ooga shaqeeyo qofka Soomaaliya ahna wadankiisan ku soo dhaweynaynaa meel ayaan u sameynaynaa marka waan ku soo dhaweynaynaa Soomaaliya maadaama aan ka guureyno Kenya sabab aan sharci Kenya ah ugu sameyno ma garanayo aad iyo aad laakiin hadda waxaad sheegteen in aanay jirin degdeg lagu guurayo dadkiina waa ay shaqeynayaan waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo haddii iyaga oo ku shaqeynaya fiisooyinkaasi iyo deganaanshanimada ardaynimada ah lagu qabto maanta xabsi iyo xarig mudanaya dawladda Soomaaliyeed haddii maanta sanadada ay sii joogayaan ama sanadka waxa uu dhow ay sii joogayaan Kenya maadaama dabayaaqada 2018 tahay in laga guuro dalkan dadkaasi haddii ay la qabto oo ay dawladda Kenya qabato Soomaha dad dambiilayaal oo xabsi mudan kara dhinaca kale dambigaasi ay galaan soo idinka mas'uuliyadda ma qaadaysaan haddii aydan maanta idin muuqan sharciye inaad u raadisaan marka ugu horeysa horta guuritaanka aan rabno in Soomaaliya loo guuro 2018 kama hadlayno aan ka hadlaynaa sanadkan aan ku jirno 2017 dhexdiisa plaankii hore ee u dejisnaa projectyada ku qornaa wuxuu ahaa dhamaadka 2018 programka annaga aan wadno waxa weeyaan in sanadkan aan ku jirno 2017 aan xafiiskaasi aan ku rarno annaga oo Soomaaliya ay diyaar inoo tahay 25 sano viisihi lagu soo shaqeynayay ee ardaynimada ahaa annaga oo dhowr bilood gudahood rabna inaan wadankii uga guurno waxaan u maleeyaa 25 sano riskiga ay soo qaateen horta marka ugu horeysa ardayga waxaa loo ogoliyay inuu wadanka joogo waa inuu wax ku bartay inuu wax ku barto shaqadana wax alla wixii aan hadda aan sameyn karna annaga macnaha dawlad ahaan anaga uma horseedin dadka inay sharci jabiyaan sharciga wadanka ay jabiyaan hay-adana waan ka wada hadalnay haddana waan ka wada hadlaynaa sidii lagu sixi lahaa inta yare ay joogaan laakiin annaga dawlad ahaan waxaan u diyaarinaynaa Soomaaliya inaad u wareejisaan inaan u wareejino tusaale hadda iyaga oo shaqeynaya haddii dawladda Kenya ay ka warhasho oo ay qaarkood xabsi galaan dawladda Kenya dawladda Soomaaliya miyay u diyaarsan tahay dadkaasi qarash kasta oo ku baxa inay banaanka keento xuquuqiyaadkooda ay raadiso hawshaas waxaan u maleeyaa marka ay dhacdo iyo hadday dhacdo waxaan rajaynaynaa inaynan dhicin laakiin markaas baa laga hadli karaa qof Soomaali ah oo la qabtay oo la xiray mas'uuliyad ayaa naga saaran hadduu noo shaqeynaya annaga oo asagoo shaqeynaya la qabtay iyo haddii asagoo magaalada dhex maraya la qabto oo shicibka caadiga ah oo shicib Soomaaliyeed qof Soomaaliyeed hadduu yahay marka waxa la wixii dawladda uga aadan xilligaas dawladda waxa uga aadan ay qabanaysaa aad iyo aad Maxamed Cabdullaahi Omar dad fara badan baa daawanaya oo Soomaali ah arrintan la rabay in loo kala cadeeyo maanta wasiirkii dadkaasi ay hoos tagayeen waa adiga shalay waa laga soo gudbay oo dad kale mas'uuliyadeeda saarneed laakiin maanta cidda mas'uuliyadeeda ay saaran tahay waa adiga haddii dadkaasi la qabto markaas ay dhacayaan waa shani dhiman laakiin waxa la yiri dad inta aanu ku soo galin ayaa la iska moosaa dadkaasi haddii la qabto dawladda Soomaaliya maxay u ballan qaadaysaa oo dinoo sheegi kartaa aan ku celiyo hadalkii aan hore u yiri anigu waxaan ka shaqeynayaa dadka Soomaaliya ee u shaqeeya hay'adda degan Nairobi in sida ugu degdegsiin badan aan ugu diyaarino goobahii ay ka shaqeyn lahaayeen iyo qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen oo aan ugu wareejino Soomaaliya now inta arrintaasi ay socoto haddii dadka Soomaaliyeed ee halkan joogo inta noo shaqeyso ee hay'addan u shaqeyso maamusha hawada iyo inta kale Soomaaliyeed ee wadankani joogta ee laga yaabo inay sharci la'aan ku joogaan la qabto mas'uuliyad ayaa dawladda ka saaran dawladdana mas'uuliyadeeda ka soo baxaysa dhinaca kale markaan eegno waxa jira muwaadiniin iyagoo u shaqeynaya hay'addan geeriyooday maalintaan ay ugu dambeysay xuquuqiyaadka ay heli jireen carruurtooda in la siiyo ka dawlad ahaan muwaadiniintaasi geeriyooday wax qorshe aad u haysaan carruurtooda aad Soomaalida la wadaagi kartaa ma jira qof kasta oo hay'adda u shaqeynaya wuxuu ku shaqeynaya contract
so dadkaasi allah u naxariisto qofka Soomaaliya asagoo hay'ad u shaqeynaya dhintay oo aanan helin xuquuqdii xaq u lahaa familkiisa ay xaq u lahaayeen qoyskiisa waxaan u qabanaynaa wax alla wixii contractiisa ku qornaa ee dawladda Soomaaliya ee aanan la siinin ayay dawladda Soomaaliya soo dhicinaysaa guntii gabagabadii markii bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa raje intee la eg ayay ka qabaan ballanqaadyada dawladdiinan ay sameynayso waliba taageerada fara badan shacabka ay ku haysato in aad fulisaan shacabka Soomaaliyeed wax badan ballanqaadyo badan way arkeen ballanqaadyo badan oo aan la fulinin haddana way arkeen hawada ayaa ka mid ah sababo badan oo loo fulin waayay way jiraan sababihii ballamada badan loo fulin waayay qaar ka mid ah wali way jiraan laakiin haddana aniga shakhsi ahaan iyo wasaaradayda waxaan sameynaynaa wax kasta oo qof bini aadan ah uu sameyn karay si ballamada aan qaadna aan u oofino waxaa ka mid ah ballamadaasi maalmihii ugu horreeyay inaan ballan qaadna in airportka Muqdisho habeenkii uu shaqeyn doono in nalal la gelin doono oo furmi doono sida aad la socotana nalkii waa la gashay airportka wuu furmay waxyaabo badan oo sidaas oo kale ah ayaan rabnaa inaan sameyno marka ballamada aan qaadayno ma aha ballanqaad afka ah waa ballanqaad aan action ku darayno waana marka insha Allah waxaan rajaynaynaa shacabka in ay ku farxi doonaan howlaha aan qabano aad ayaad u mahadsantahay wasiir Maxamed Cabdullaahi Omar waraysigan gaarka ah ee CCTV-ga STN ee magaalada Nairobi aqoonteena daawanaysay intaasi ayaan gabi ahaanba ku soo afmeeraynaa waraysigii gaarka ahaa aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Omar anigoo Cabdulcasiis Barrow ayaa idin la socodsiinayay dhinaca muqdoobayaasha iyo farsamadana waxa uu ahaa saaxiibkay Axmed Yuusuf tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid intii aan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadsan